السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan maanta la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed khaasatan inta samaha jecel inta wadaniyada iyo horumarka iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed jecel inta ka soo horjeeda xaq darrada iyo xadgudubka iyo xumaanta ay dadka qaar ka caadaysteen. waxaan leeyahay markaad rabto wanaag, markaad rabto horumar, markaad rabto sharaf iyo karaamo aad leedahay inaad adduunka kaga dhex muuqato maaha wax inta sacabada u hoorsato cirka kaaga soo dhacay. waxa u baahan tahay dadaal fara badan, waxa u baahan tahay dulqaad fara badan, waxay u baahan tahay caqabad walba oo ku hor istaagta oo sharaftaada iyo karaamadaada iyo hor socodkaaga diidan inaad iska qabato, inaad xoog iskaga caabidaa bay u baahan tahay. hadalkan waxaan la jeedaa ninkii dambiyada lagu soo oogay ee horena qaar ugu cadaayeen ay ahayd inuu badana iibsaday, haddana uu dawladda Imaaraadka lacag ka soo qaatay uu ku duminayay dawladnimada oo kaga soo horjeeday ee la qabtay maalintii dhaweyd shalay lagu sii daayay damiinka. nimankii damiinka saxeexay waxaa ka mid ahaa koow gudoomiyaha gobolka Banaadir, waxaa ka mid ahaa ninka gofernatoraha ka ah Hirshabeelle iyo sidoo kale ninka gofernatoraha ka ah Galmudug. taa micnaheedu waxay tahay qofku marka uu dambi galo damaanad waxa ay tahay inay saxeexaan dad mas'uuliyiin oo lagu kalsoon yahay. taabid waa nin mas'uula oo dhalinyaro ah oo aan ku kalsoonahay, yacni damaanadna waa lagu aamini karaa. anigu xaaf kama aamin qabo, ummadda Soomaaliyeedna kama aamin qabto. ninkii qaraabka doontay weeyaan ee hawshan oo dhan bilaabay. ninkii haddaba lagu sii daayay damaanadda nooca ahayd ayaa gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ka daba qaatay qaylo oo uu yiri waa xor. taa micnaheedu waxay tahay wuxuu saf leeyahay shantii tuug ee halka qoys ahaa. shan tuuga oo shantuba hal qoys xataa beel sare maaha, jifi hoose isla wada yihiin buu isaguna jifi leeyahay. taa micnaheedu waxay tahay sharci ma xeerin, ummad Soomaaliyeed ma xeerin, maxkamad dhan buu ka yahay gudoomiye ma uusan fiirin, qabiilka kala han weynaaday, qabiilka u muuqday. ummadda Soomaaliyeed masasad fiirsanaysaan marka ma taasaa wax la daawan karaa? isaga ayay tahay in laga ceyriyo maxkamadda, mana aha wax ummadda Soomaaliyeed ay u dul qaadan karto. ma aha madaxweyne Farmaajo iyo Xasan Cali Khayre waxaan ku codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed haddii aanu nahay, haddii aad doonaysaan dad idin la shaqeeya waa inay idinka helaan waxay ku kalsoon yihiin oo niyadooda ay ku dhisan karaan oo wanaag aad samaynaysaan. xaq darro faraha laga laabto horaan uga soo daalay. horey baan waxaan u ogeyn wasiir Cabbaas Siraaji dilkiisii ninkii ka dambeeyay oo lagu wada hagoogtay oo hal family jifi yari ay ku hagoogatay. ma ummadii Soomaaliyeed oo dhan iyo jifi yar bay noqotay marka? war caqliga xagee idinkaga jiraa? caqligu xagee buu idinkaga jiraa? ummadii Soomaaliyeed oo dhan maxaa ku dhacaysa? maxaa ka khaldan dadka? qomku ma qom la rogayaaba see wuxuu jiraan? qof baa dambi lagu soo eedeeyay, waaran baa lagu soo xidhay, waxaa lagu sii daayay damaanad maadaama waqtiga dambigiisa la baarayaa aysan noqon karin sida uu sheegay ninka gudoomiyaha maxkamadda sheeganaya 24 hours. adduunka kama dhicin dambi la yiri nin siyaasiya dambi lagu soo cadeynayo 24 hour ha lagu soo cadeeyo. caalamka kama dhacdo, isbuuciyo bilo sanado ayay qaadataa qofka dambigiisa in la cadeeyo. suuqley 24 hours ha lagu soo cadeeyo, waxba wad cadeyn weydeen. afartii tuug ee ugu horeeyay ninka xidhan ee dambiilaha ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur, Fiqi, Mahad Salaad, Odawaa iyo ninka maxkamadda haysta hal family weeyaan. ma familkooda ummadii Soomaaliyeed oo dhan kala qiimo weynaaday? ma qabiilba ummadii Soomaaliyeed oo dhan kala sareeyay? war caqli isu yeelo dad yahow,
lama hadlayaan familkaas waxaan la hadlayaa ummadda Soomaaliyeed ee sharafteeda lagu ciyaaraya la hadlaya iyo waliba dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha ayaan la hadlayaa ummad baa idinka sugaysa sharaf iyo karaamo iyo wax qabad laakiinse ma aha tii shalay ee Siraaji baan ogeynaad meel saari weydeen oo ilaa iyo hadda ninkii dambiilaha ah oo ay ku caddahay inuu dilay oo qirtay tiirka la keeni laayahay cadaaladda Siraaji la marsiin waayay ayaa maantana waxay maraysaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo dambiilo weyn in ninka ku talka ah ee inaadeerkiisa rumaada u yiraahdo waa bilaa dambi ma sharci baa shaqeeya mise inaadeernima shaqeysa dawladda Soomaaliya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ummadda Soomaaliyeed ha uga soo jawaabin taas ma qabiil baa shaqeeya mise sharci baa shaqeeya hana loo soo kala cadeeyo labadaas hana ka hadlaan ninka xeer ilaaliyaha guud qaranka uu ka hadlay xaq darro in lagu sii daayay oo ninkaas maxkamadda haysta oo xaq darro hadalka u yirina wuu cadeeyay baaritaan 24 hours inaan lagu cadeyn karin cid kasta og marka waxaan idin sheegayaa go'aanka uu qaatay xeer ilaaliyaha guud ee maxkamadda madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarahaba waa inaad la qaadataan oo ninkaas waajibkiisa la marsiiyaa ummadda Soomaaliyeed sidaas kuma cafiyeyso kumana helaysaan ummadan idin heelan ee dawladnimada u heelan sidaas idinku lama sii socon doonto haddad xaq darradan aad ku sii wadaan xaq darrada meesha ka socota mid la aqbali karayo ma aha xaaladda aad ku jirtaanna waan ognahay waxayna u baahan tahay awood iyo baawar ummadda Soomaaliyeed oo dhan taasay garab idinku siinaysaa laakiin reer baa qaylinaya maxay tahay reer baa qaylinaya waar loo dhis weeyaan dagaal oogayaashii la yaqaanay caydiid ugu horeeyo dagaal oogayaashii la yaqaanay ee baarlamaanka dhex fadhiya ayaa hal qoys acuudu billah waxyaabaha qaarkood markaad aragto waad naxaysaa hal qoys baa 8 nin oo dawladda kaga jira isu soo urursadeen tafaa soo qabsadeen oo leeyninkayaga lama xiri karo ka wax dilay lama dili karo waa ummadii kale maxay ahayd marka ummadda kale ma dhagxaanba ma ciidba maxay tahay ummadda Soomaaliyeed kale taala kale maxay la aamusantihiin dadkiina aamusan ummadda Soomaaliyeed maxay aamusiyeen war ma shan nin oo hal qoys ka wada dhashay ayaa ummadda Soomaaliyeed oo dhan ay u cadiban tahay oo cakran tahay waxaas wax aqliga bil aadanka qaadan karayo ma aha wax aan aqbali karaynana ma aha ninka gudoomiyaha ah ee maxkamadda haysta waa in xilka sida ugu dhaqsaha badan laga qaado aad baan idin salaamay dhamaantiin